xafladan oo isugu jirta dhiirigelin iyo sagootin arday kaalinta sagaalaad ka galay imtixaanka qaranka iyo kaalinta koowaad ee galmudug ayaa waxaa lagu qabtay hoolka weyn ee Kafaala waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xubnaha ugu sarreeya wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug macallimiin iyo arday qaybaha kala duwan ee bulshada xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug waxaana ugu horeyn xafladda ka hadlay wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug Axmed Deeq Cabdi Maxamed waxaan rabaa marka hore inaan hambaliyada iyo iyo sacabka iyo xafladeynta aan u hambaliyo Cabdi Fataax oo runtii sharafkeeni aad iyo aad runtii u difaacay hadaan ahay reer galmudug iyo khaasatan reer Cadaado oo maanta aan dhihi karno markii laga rabo caasimadii dalka meel ka baxsan oo noqdo ardayga tobnaad ama tobanka arday ugu horeyso inuu ka soo qayb galo arday reer Cadaado runtii waa reer Cadaado sharaf weyn ayay u tahay reer galmudugna runtii sharaf ayay u tahay waxaan rabaa marka wax weeyaan waqtiga ka faa'iideysanayo Cabdi Fataax sidii aan rajeynayno wuxuu aadi doonaa wadanka dibadiisa hadii Ilaahay yiraahdo wax ku soo barto wayna waa rajeynayna inuu noo soo noqon doono asagoo dhakhtar ah hadii Ilaahay yiraahdo si uu dalka iyo deegaanka u anfaco hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaan ku sugno ama aan hubino hadii Ilaahay yiraahdo intuu ka tagi doono jaamacadiisii sidoo kale waxa iyaguna dhankooda hadallo kooban ka jeediyay madasha maamulayaal macallimiin iyo ardayda wax ka baratay iskoolada ku yaala deegaanka waxaan bogaadinayaa oo aad aan ugu faraxsanahay waxaan balyeynaya doorka muuqdo ee wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadanaydo dhiirigelinta ardada dhigata dugsiyada kala duwan ee galmudug waa wasaaradda waxbarashada ee galmudug runtii sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay hadaan nahay reer iftiin kaalinta wax ku oolka ah ee uu soo hooyay ardayga Cabdi Fataax Cabdullaahi Xaashi oo ka mid ah ardadii reer galmudug ardadii reer Cadaado ardadii reer iftiin inta kadib waxaan xafladeenu soo ku saabsan tahay adogeydeen waxay ku saabsaneed soo dhaweyntii iyo maamuusidii ardaygii kaalinta sagaalaad ka galay guudaan imtixaankii Soomaaliya kaalinta koowaadna ka galay Cabdi Fataax Cabdullaahi Xaashi inaan ku dhiirigelino dhammaan arday kasta dadaalka uu la yimaado in la yiraahdo waad mahadsan tahay waana istaahishaa xaflad in lagu sameeyo waxaan rabaa intaana marka anagoo aragtideena fakarkeena soo bandhigin inaan marka hore asaga si gaar ah oo weliba boqolkiiba boqol ah kaga bahad celino kuna dhiirigelino midda uu Soomaaliya ka soo hooyay in uu meelaha kale u tagi doono ardaygaasi ka soo hooyay hadii la yiraahdo midaan waa mid dakhili aan leh mid khariji aan rabno marka waxaan leeyahay ardayga form 4 ka ah maanta dadaalkaaga muuji oo ku talagal in sida Cabdi Fataax lagu maamuuso insha Allah taala runtii anaga hadaan nahay maamulayaal iyo macallimiin waxa farxad weyn noo ah mar walba in la yiraahdo galmudug kaalinay gashay sababtoo ah macallimiinta iyo maamulayaasha galmudug ayaan wasaaraduna waa nooga sii farxad badanta marka waxaan leeyahay la dhiirigeliya oo dadaala oo cidda aan ka rabno marka dadaalka anaga aan bixinayno inay ka faa'iideystaan waadinka xafladan maanta qiimaha badan oo halkaan ka dhacday oo ay sameeyeen wasaaradda waxbarashada galmudug oo aan horey looga baran mar kale ayaan u mahad celinayaa sidoo kale haddii aad kaalimahaas gashaan ama dadaalkaas aad sii samaysaan ardadiina hadda hor fadhisa ee sanooyinka soo socda qalin jibinaya adinkana waxaa la idiin samayn doonaa waxaa loo sameeyay Cabdi Fataax lankama nibca qalbiga geliya bal waaba iskaga sii dadaal badinaynaa maadaama wasaaraddii ay noo bilowday xaflad inay u samayso oo ka soo wada qayb galaan dhammaan iskuulada dhan insha Allah taala waxaan aad u soo dhaweynayaa kaalinta qiimaha badan ee Cabdi Fataax uu soo hooyay degmada gobolka galmudug marka koowaad marka labaadna degmada Cadaado marka saddexaadna iskuulka uu ka tirsanaa oo ah Umar Faaruq oo runtii ah iskuulaadka ayaguna ka dhigay nixaayada degmada Cadaado ragooda kaalmaha uga jira inta taa haddaan uga baxo oo soo degdego wax yar wasaaradda galmudug maanta waa la fadhidaa sanadkii hore horta insha Allah taala sida loo sheegay kaalinta koowaad kaalinta toddobaad ayaa waxa ka galay iskuulkeena imtixaankii la qaaday iskuulkan anagu kulay toban maamulaha ka ah oo joogo ayaa waxa kaalinta toddobaad ka galay arday aad u da'yaraa runtii 18 markaas gaaray
oo iskuulka ka qalin jabiyay ayaa kaalinta toddobaad ka galay ha ka galay insha allahu tacaala sanadkaas intaana imtixaanka gelin waxaa wasaaradda galmudug runtii raggii markaas joogay ay noo sheegeen qoladii wax keenta oo magac u soo hoyda galmudug qaas ahaan iyo si guud iyo si gaar ahaaneed waxaa lagu abaalmarin doonaa oo galmudug ay sii doontaa baabuur la yidhaahdo leyli calaawi baabuurkaasoo runtii ugu yaraan $12,000 jooga $12,000 jooga ugu yaraan ayaa naloo ballan qaaday baabuurkii iska daayay bala faanta xataa lagama soo daba tuurin dhanka kale waxaa isna waayihiisa nololeed ka warbixiyay cabdifataax cabdulaahi xaashi oo ah ardayga lagu sagootinaya xafladani أنا waxaan ku dhashay magaalada Cadaado sanadii 2000 bishii 18 suuqraankii waxaan bilaabay 2007 oo markaasi aan bilaabay dugsigii quraanka ugu horeeyay waxbarashada maadigan waxaan ku soo biiray 2021 iskuulka Umar Faaruq oo saddex iyo sare ayaan ka soo baxay dafcadii lixaad ee iskuulkan uu soo saaray iskuulka Umar Faaruq ayaan ka mid ahay oo sanadkan qalin jebinaysay runtii haddii aan ka warramo kaalmi kale aan soo galay markii ugu horeysay oo kaalin soo galay waxay ahayd kaalinta koobaad aan galay oo fasalka ama iskuulka aan galay waxay 2015 markaas aan fasalka 9aad marayay taas oo igu dhiirigelisay inaan hamiyo kaalin aad u sareysa guud ahaan Soomaaliya ugu dambeyntii waxaa madasha abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha ka galay labadii sano ee lasoo dhaafay imtixaanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo kan galmudug ee kasoo jeeda deegaanada galmudug liibaan cabdi ciise TV-ga dowlad goboleedka galmudug magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug